السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة يراد maanta waxaan bixin doonaa mowduuc yar oo la yiraahdo disk management ama inaad manage gareystid diskaha ku jira computerkaaga. Si aad u manage gareysto waxaad u baahan tahay inaad aadid qaybtan loo yaqaano my computer. waa inaad dhahdaa manage, halka manage waa inaad ku dhuftaa, waad sugaysaa, waxaa kusoo bixi doona halkan ayaa kusoo bixi doona. halkan markuu soo baxo waxaad dooranaysaa storage, waxaad ka dooranaysaa disk management. disk management marka waxaad imaanaysaa diskaha qaybtan wuxuu sheegayaa intuu qayb yahay, waa 500 GB ayuu ku leeyahay. sidoo kale wuxuu sheegayaa qayb la yiraahdo system reserved. qaybtan waa qayb loo yaqaano basic disk ama qayb uu ku kaydsan yahay MBR, okay, master boot record. marka qaybtan waa qayb yar oo gooni isu goynayso, waa MB yar oo aad u yar. diskahan wuxuu u qaybsan yahay laba qayb, qayb la yiraahdo C iyo qayb la yiraahdo D. qaybtan D waxaa ku jiro daatada caadiga ah ee computerka, C waxaa ku jiro waxa loo yaqaano bootka ama window ayaa ku jiro. haddii aad u baahdid marka inaad kala qaybisid waad qaybin kartaa. C hadda waxaa ka bannaan markii qaybtaas kore aan ka fiirino kale, halkan waxaa kugu qoran waxa loo yaqaano free space iyo capacity. marka aad C oo kale waxaa ka bannaan 132 GB ah. C marka waxaan u baahannahay inaan ku sameyno waxa la yiraahdo partition, okay. waxaan sameynaynaa waxa la yiraahdo partitioning, okay. waxaan sameynaa waxa la yiraahdo partition ayaan sameynaa. marka sidee partition u sameynaynaa? waxaan leenahay right click, waxaan leenahay shrink, halkaas aan ku dhufaynaa shrink ayaa leeyahay. waan sugayaa marka la soo qabto shrinki wuxuu ku soo qabanayaa space-ka xilligaasi macquulka ah ayuu ku soo qabanayaa, inaad goysid macquulka ayuu ku soo qaban doonaa, okay. wuxuu keenay inuu gooyo 106 GB inuu gooyo ayuu keenay, okay. waxaan leenahay waxaad goysaa 100 keliya, sababtoo ah totalkiisa hadii uu kusoo qoray wuxuu ku yiri totalka hadda bannaan ama total size of shrinking oo kusoo hari doono wuxuu noqonayaa 132 GB ee kusoo hari doono. totalkiisa kore waa kaas, halkaas uu ku qoran yahay, totalka meesha ku qoran yahay, size-ka suurtagalka in la gooyo iyo inta harayso, okay. markii la gooyo inta ku harayso, okay. halkaan marka waxaan goosanaynaa waxa la yiraahdo 101 GB ayaan goynaynaa, 101 GB ayaan goynaynaa. halkaan waxaan leenahay marka shrink wuxuu ku leeyahay you cannot shrink a value beyond the point where, okay. haddii marka meeshu hadday noo soo qabtay tiradu noo soo qabtay tiro ka badan ma goosan karno, wuu diidayaa. marka shrink ayaan leeyahay, C-du waa 233, 100 ayaan ka gooyay, marka 133 ayaa soo harayso ama 132 waxaas ayaa soo hari doona haddii la yiraahdo. tirada mar walba iyada ayaa xadidayso. 100 GB ayaa noo soo 100 GB hadda wuxuu marayaa xaalad la yiraahdo unallocated, sababtoo ah weli ma aanan sample garaynin ama meel ma aan u magacaabin, okay. qaybtan aad goysay hadda wuu go'an yahay, sababtoo ah C ayaan waxaan ka gooyay 100 ayaan ka gooyay. 100kan go'an waxaan u baahanahay marka inaan ka dhigo drive cusub, inaan ka dhigo right click ayaan leeyahay, waxaan leeyahay new sample ayaan leeyahay. wuxuu ku leeyahay sample wizard cusub kusoo dhawow, waxaan leeyahay next. wuxuu ku soo qabanayaa size-kii caadiga aad goosatay, wuxuu ku leeyahay waxaana ma ku kordhin kartid, okay. like waxaad ka dhimi kartaa like waxba kuma kordhin kartid, okay. next drive-ka waa inaad assign magac waa inaad u bixisaa. hadda waxaa la isticmaalay C iyo D waa la isticmaalay, waxaan u bixinaynaa F oo kale ayaad isaga baxsanaysaa, okay. waxaad leedahay next, waxaad leedahay halkan waxaad u dooraysaa waxa la yiraahdo NTFS fatkan hadhow kale daatooyinka aad ku weyn oo kale GB weyn yahay uu kaa diidi doonaa. NTFS value level halkan magac u bixi,
waxaan leeyahay data drive. Okay, data drive. waxaan leeyahay marka next waxaan leeyahay finish. waxaan leeyahay finish. wuu format gareynayaa. Okay, waxaan noo samaysmay drive la yiraahdo f la yiraahdo. hadda waxaan leenahay c f iyo d. Okay, qaybtan hoose wuxuu kuu sheegaya calaamado oo 4 ah ilaa 5 ah. wuxuu ku leeyahay calaamada madow haddii aragtid waa unallocated, calaamada haddii aragtid buluuga ah oo tiqa ah waa primary partition, kan waa extended mid la gooyay, kan waa free space, kan waa logical drive. marka wuxuu ku tusaa waxa la yiraahdo state. waxa la yiraahdo stateskan waa halkan uu ka tusayo stateka marka xaaladda drive-kaas uu ku sugan yahay. hadda drive-kan uu ku leeyahay system kooy waa midkii system reserved ka ahaa, waa midka uu ku qoran yahay waxa la yiraahdo master boot code ama mbr-ka ama qaybta hadhow kaleenta boot-ka ah ee systemka uu kasoo kicin doono window. qaybta c waxa ku jirta waxa loo yaqaano window ayaa ku jiro, waa primary partition. waa halkan waxaa ku qoran boot way page file crash dambe oo ku jira primary partition. marka sidaas ayuu sii qaybsan. haddii aan u baahanahay kan inaan dib u celiyo maxaan sameynayaa? waxaad sameynaysaa waad tiraysaa, isaga ayaa dib u tiraysaa. right click de waxaa leedahay delete ayaad leedahay. okay, delete markaa dhahdid haddii data ay kugu jirto wuxuu ku leeyahay dhammaan datada ku jirtay waa la tiri doonaa meeshaan aad delete garaynaysid ama format garaynaysid. fadlan iska hubi ayuu ku leeyahay ama datada backup ka samayso haddana wax data noogu jirto. fadlan haddii aad format garaynaysid ha isku qaldin drive-yadaada. midka aad samaysay hubi, iska hubi hal mar 2 mar iska hubi inuu yahay midka saxan ee aad format garaynaysid. mararka qaar waxaa laga yaabaa drive-yada qaar inaad ku qaladid. marka mar haddii format garaysid halis ay galaysid datada. right click ku kordhe waxaan leedahay delete yes. marka ugu horeysa waa delete garaynaysaa. marka aad delete garaysid free space ayuu kusoo baxayaa. okay, marka stepka labaad wuxuu noqonayaa right click ayaad leedahay, partition ahaan ayaad tiraysaa. hadda waxaan tiray drive ahaan ayaan tiray, hadda free ayuu noqday, free space ayuu noqday. marka free space waxaan leeyahay right click waxaan leeyahay delete partition. partition ahaan ayaan leeyahay partition-kan waad u baahan tahay inaad tirtid. okay, yes. partition-kii waan tiray, waxaan ku soo celiyay xaaladiisii ugu horeysay ee ahayd unallocated. hadda waxaan fursad u haystaa inaan labadan mid ka mid ah aan ku kordhiyo 100 GB. hadda kan waa ku kordhin karaa anigoo adeegsanaya waxa loo yaqaan extended. kan hadda extended malahan uu diidan yahay, laakiin kan ayaa ogolaanaya sababtoo isaga ayaan ka jaray. waxaan leeyahay right click. okay, waxaan leeyahay extend ayaan leeyahay. okay, hadda inta meeqa waa 134 GB. waxaan ku darsanayaa 98 GB ayaan kusoo kordhirayaa. waxaan leeyahay extend kusoo kordhi, kan kusoo kordhi. wuxuu ku leeyahay extend value miyaad sameynaysaa? waxaan leeyahay yes oo ah next. waxaan leeyahay next. waxaan leeyahay finish. okay, wuu kusoo darsamay. hadda waxaan helay datadii dib ayaan helay. sidaas ayaad u sameynaysaa marka adigoo adeegsanaya waxa loo yaqaano extend, shrink iyo delete. okay, sidoo kale waxaad arki kartaa drive-ka properties-kiisa xaaladda uu ku sugan yahay, isagoo ku siinayo inta laga isticmaalay totalkiisa intuu yahay. adigoo ku sameyn karta waxa la yiraahdo disk clean up. disk clean up-kan waa fursad qof walba computerkiisa muhiim u tahay inuu mar walba ku sameeyo, sababtoo waxaa jira daatooyin ama waxa loo yaqaano temporary files oo computerka aad gudihiisa u gali karo oo hadhow kale computerkaaga ka dhigi doono mid mashquul ah. marka isagana mararka qaar waa lagu sameeyaa qaybta sida waxaa lagu sameeyaa waxa loo yaqaano disk clean up ayaa lagu sameeyaa. waxaa kaloo jiri kara waxa la yiraahdo disk defragment oo Windows 7 ayaa iskale. hadda Windows 8 marka hadda wuxuu iskaan gareynayaa dhammaan file-ka, iskaan gareynayaa uu soo qabanayaa wixii ku jiro everything. marka saas ayuu hadhow kaleeto waad tiri doontaa. marka waad dooranaysaa waad tiraysaa, saas ayuu ku dhamaanaya. marka intaan cashirkan aan ku kulmi doono intaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.